بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. halkan waxaan isugu nimid guddiga garxajis ee UK sababta aan isugu nimidna waxa weeyaan aanu cadayno ama muujino taageero muujino guddiga guud ee garxajis ee lagu doortay guurtii gacan libaax lagu doortay guddidaas ayaa ah guddida xaqa ah sharciga ah guddidaas aan daba taagan haddaan nahay qurba jooga garxajis iyo dadka gudaha joogaba dhamaantayo waxaanu mandate siinay on taageersanahay guddida garxajis ee gacan libaax lagu doorto cid kale oo u daba fadhina xalada garxajisna ma jirto aan iyaga ahayn waxaan arkaynay maalin dhaweyto isaga oo Muuse u yeeray odayaal garxajis ah oo yiri waxaan doonayaa inaan xariir musharafad idin sameeyo oo aan idinka mahad celiyo soo dhawaynta ay soo dhaweyseen mahad celintu hadday kaa dhabtahay Muuse waxaa mahad celin oo ah Somaliland oo dhanba adu cadaalad ugu qaybiyo taasaa mahad celin oo ah taasaa wanaag oo ah taasaa hawshii laga filayay inaad qabato inaad cadaalad umada ugu qaybiso laakiin inaad ama amaanto ama aad tiraahdo hal musharaf baan idin samaynayaa looma baahnay odayaashaas oo odayaashayadii kulli meel ka dhac ku oran meeni hadal qadafa midnaba ku oran mayno laakiin waxaan leenahay haddaynu cid dooranay oo inuu isku ognahay oo nidaam samaysanay nidaamkaynu dhammaantiin wada daba taagnaano ayaa waajib ah guddigeen waxaa kaloo raacin lahaa intaa doorashadii commissionka oo xisbiga kulmiye ku dhagan yahay oo ah halku ka dhaqaaqi lahayd doorashada commissionku waa xeerbeegtina haddaan dadku kalsoonayn oo laba nin oo loo garqaadi hadduu ninkaas anigu kuma kalsoonin waa laga reebaa xeerbeegti weeyaan xeerbeegtidii haddii la yidhi kuma kalsoonin waxa kulmiye ugu dhagan yahay ayaan la yaabanahay xisbigii wadani wuxuu leeyahay ma ogolin diyaarna ma yihin waxaana muuqata in ay qorshayaal iyo shirqoollo ay jiraan oo uu caddeeyey ciidanka gudoomiye ku-xigeenka ucid uu caddeeyey oo uu sheegay qorshayaal baa jira shirqoollo lagu talagalay in wadani lagu dadafiyo ama tuka gaar laga dhigo oo mataqaanaa midab gooniya leh marka waxaan leenahay soo jeedinaynaa in commissionka laga qaado meesha la bedelo commissionka laftirkooda waxaan leenahay ilmaadii rayaasi ay doorashadii nagu dhacdo taariikh wanaagsan ka taga oo ummadda u baneeya oo idinku iscasila haddii kulmiyada ku dhagay dadku aanay idin ogolayn waxa idin wanaagsan inay idinku iscasishaan oo ka baneysaan oo ka tagtaan waxaan arkaynay Muuse inuu aad u ammaanay madaxweyne Muuse uu aad u ammaanay odayaashii markii uu yimaadeen reerka garxajis haddii ay ammaantu ka dhabtahay garxajis hablahooda waxa lagu cayay buugaag oo lagu qoray buugaagtaas wax ka qaban lahaa oo in badan sanadan laga qaybin rag iyo dumarba laga hadlayay oo ka qaban lahaa haddii ay ammaanta oo ammaanaya ay ka dhabtahay taas wax ka qaban lahaa oo ninkii qoray buuga oo waliba goortii soo saartay in la gubo ilaa imkan aan la gubin walina wasiiru yahay joogo waxaan intaa raacin lahaa oo soo gabagabeynaya cadaalad haddii la waayo dalkeenu jiri maayo uu burburayaa waxaanu ka dagaalanayna waa cadaalad maanaan filin marnaba nin SNM sheeganay soo dagaalama oo lahaa waxaan ka dagaalamay cadaalad darro inuu isagii cadaalad darradii sameeyo intii aan ka dagaalanay oo dhan baa maanta taagan lagama filayn Muuse lagamana filayn Siiraayo kuwii ugu darnaa ee cadaalad darrada dalka keenayna labadaas ay ahayd riyaal ka horreeyo SNM xataa ahayn waa cadaalad dhaamay gar alle taqaanay waxaan leenahay cadaalad kula dalka haddii kala wada ku burburaya nabadna jiri mayso haddii cadaalad waayo assalaamu calaykum warahmatullahi saaxiibada waan banaynayaa بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دمار السماوات قبلها قدرة بلويتك الحدث لكم فردا فردا معاوة هل كان السجون نمي وهي بشو تهاي السجال بشي كوباد سنة كا لما كنا يسجالية توانكا وحاو دارية هاي بينا ردتك وكلا بيامنو لما أرهموت oo aad moodo dadka intiisa badan in iskaga khaldantay oo aan doon halkan ku kala saaro labada arrimood oo kala ah guddiga guud
beelweynta garxajis iyo qada sharaftii uu muuse bixi maalintii dhaweeto ka sameeyey magaalada Hargeysa labada arrimood ayaan horta marka hore doonayna kala saaro intaanan u gelin taageerada aanu hayno in halkan isugu nimi ku saabsan beelweynta garxajis iyo guddideeda guud ee lagu soo doortay gurtiga gacan libaax guddida guud waxa weeyaan guddida kaliya ee haysta mandate-ka dalka waxaa ka jira 3 xisbi qaran ayaa ka jira 3 xisbi qaran qof kastaaba oo ku jira guddida guud ee garxajis bay hoos yimaadaan oo iyaga ayaa u guddiya una madaxa go'aankoodana haya marka horta dadka yaan iskaga khaldamin shirkii maalintii dhawaata ka dhacay magaalada Hargeysa madaxtooyada Soomaaliland wuxuu ahaa shir xisbi qaran oo kulmiye la yiraahdaa iyo taageerayaashiisii ama madaxdiisii ay ku wada hadlayeen hawlo u fuleen ay isaga mahad celiyeen marka dadku yaanay u qaadanay inay tahay guddi garxajis halkaa fadhiday oo beelweynta garxajis matalaysa jawaabtu waxa weeyaan waa maya guddidii garxajis ee 22 ah ee lagu soo doortay buurta gacan libaax shirkii ka dhacay guddidaas ah guddida codka ku fadhida shacabka beelweynta garxajis ee guud haddii aan yaroo kale ku daro halkaa maalintii dhawato qado wanaagsan baa ka dhacday si wacan baa qurux badan baa loo qadeeyey dhar fiican oo kaawadaysan baa la soo xidhay madax fara badan oo qiimo sare leh baa timi oo dhaqan iyo siyaasad iyo culimo iyo ganacsato iyo arday intaba leh laakiin su'aashu waxay tahay dadku marka ay meel tegayaan waxbay la tagaan qof waliba wuxuu la tago horta kala soo noqdaa shirka marka la tago waxna waa la tagaa waxna waa laga soo noqdaa waxa hadda anigu aan isweydiinayaa dadka ila fikirkooda ay isweydiinayaan marka quruxda badan halka laga tagay maxaa ka hooseeyay ee laga tagay madaxda halka tagtay ay la tageen ama ay kala soo noqonayaan anigu waxay kala soo noqonayaan inaanay jirin maadaama aanay jirin waxay la tageen waxba kala soo noqon maayaan sidaa darteed baanay ku metelin beelweynta garxajis oo aanay u noqon karin iyagoo ku hadlaya afkooda ama codkooda midnaba aanay ku metelin maadaama ay jirto guddidii guud ee beelweynta garxajis aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنا بعوض فكنا جديد كرحجيس UK حمدوننا نقدر نعلنه arrimaha ka jira wadankii runtii dareen weyn kula dadkayga qurba jooga sida la socotaan shirka ka dhacay magaalada Hargeysa uu isugu yeeray madaxweynuhu waxaanu ka filanaynay in lagu hagaajin doono waxyaalihii khaldamay wadanka ka dhacay taasoo runtii hawlihii wadanka jiray la wadoogaa oo ay si cad u muuqato culayska jira ee magaca garxajis saarnaa amba dagaaladii bariga ha noqdo amba maamul qaybsiga ha noqdo oo ah wax runtii ay ka dareem celiyeen garxajis oo shir weyn ka qabteen hawl weyn ay gashay go'aamo laga soo saaray arrintaasi waxay noqotay markaanu aragtideedii arrimaha dadka dibadda jooga in uu muuse halkaa ku tiiqtiiqsi waday oo ereyada halkaa ka baxaya madaxweynaha ay ahaayeen samir baa qaadan jirteen waxa la islahaa way dagaalamayaan runtii hadalladaasi wuxuunbay ay sii kordhiyeenun tensionkii dadka guud ahaan dadka Somaliland waxa deeqa ayaa garxajis deeqa raayigayga aniga Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii umusha u danaya ilmaha u dana waxaynu ogeyn talisidii hore wadankan Soomaaliya soo maray waxaynu ogeyn inagoo qaxaynay Muqdisho dad faraxsanaayeen oo ay habi ku ahayn dawladda siyaad bare laakiin aakhirkii la wada qaxayo maca isagii uu taarika dhaafay taasi waxay ka turjumaysaa guddida garxajis ee buurta ku shirtay ee go'aamada soo jeedisay war cadaalad aynu ku dhaqanno anigu waxaan ka dareen qabay bal in ummadda kale wadanka ku noolan garxajis ahayn
guurtidooda amba arringalkooda inuu arrintaa wax ka idhaa laakiin waxaad moodaa in dadku ilaa daadku usoo galo aanay dareen qaadan marka waxaan usoo noqonayaa raggii meeshaa tegey ee ahaa raggii salaadiinta ahaa amba aqoon-yahanka salaadiintan waxaan leeyahay garxajise meesha tegey isagoo raggii ugu horreeyay hadleen oo aanan aflagaado u geysanayno cimaamadii reerka sidaan war waxay salaadiinta reeraha kala doonayaanay gacmaha isku saarayeen burco miyaa garan laadi midna waxaan leeyahay siyaasiyiinta garxajis maanta waddanka ragga ka taliya madaxweyne muuse biixi iyo inay kaahin war waxay doonayaan miidaan garanayn taasna nimanka siyaasiyiinta garxajis baan leeyahay kolba inta ay soo fadhiistaan iyagu nin kale u jawaabayay iyaga la isu soo diray waxaan leeyahay dhalinyarada garxajisna mid baan leeyahayoo dee horta waqtigu uu socdaa taariikhdu way isqoraysaa maalinba arrin baa imanaysa raggii hore taariikhda ka tegey ee waddankan soo maray soomaaliya sayid maxamed cabdulla xasan nin buu ahaa inayga ninkii la odhan jiray nin buu ahaa taariikhdu way isqortaa markaa dhallinyaradana waxaa leeyahay samrin oo dulligana ha qaadanina nin keliya ayaa wax change garayn karaa tusaale ahaan haddaan idiin soo qaato ninkii la odhan jiray ninkii muqdisho iyo dee koonfur oo dhan ay ka wada qelisay nin buu ahaa ka tegay xaafadda hargeysa ka mid a inuu godolo buu ahaa marka hal rajada qaba oo maxay ahayd dulmigana diida ninkii la odhan jiray maxamed xaashi gaani marka ay ciidankii SNM soo galaan buurihii gacanliba amba madheere jabiyeen amba ninkii haragwaafuu ka dagaalami jiray uu samayn jiray ambushada wuxuu yeedhi jiray odayaashii waddanka joogay ayuu shirin jiray iyaga oo aad garanaysa awoodii uu lahaa ciidankii si aad bare ilaa iyo looya caddo ilaa buulaha uu kaarihiisii iyo beebeegiisii tunaa ayaa haddana rag odayaal oo aan saldanadna sheeganayn cimaamadooda iska sitaa sida aadan maxamed siraad iyo ninkii la odhan jiray maxay ahayd odaygii aadan diiriye masooli ay runta u sheegi jireen jira war haddaad nin tahay orodoo buurahay ku jiraana soo qabso raggan meesha isugu tegey war ina biixi dee weyn oogni waxa meesha laga hadlayo dareenku wayna wada saameeyey meel walba waa la isog yahay ma cadaaladii aad ku dhaaratay fuli baa la odhan kari waayay anigu waxaan kaga baxayaa arrinka war dhigtu waa wax wanaagsane raggiina maxay ahayd magaca sheeganayaan bas saldanad ha noqdo amba ha noqdo siyaasiyoga dhigtiin iyo magaciina hagaajista dadka waddanka Soomaaliland oo guudna waxaan leeyahay arrinta halkaa ka haysaan dhibteedu waxay saameysay qurbi maqaaxi colaad bay saameysay weyn bay ay adduunka saameysay marka mid ku faraxsan iyo mid ka xunooba gurigaaga kugu soo galay hadii laga hortagi way si ku salaam alaykum